waxaa inoo suura gashay waraysi dhinacyo badan taabanaya inaan la yeelno Khadiija Maxamed Cilmi oo iyadu ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee dhawaan safarka taariikhka ku soo galay dalka Italiya. Khadiija ayaa su'aasha ugu horeysa aan weydiiyay waxay tahay bal markii ugu horeyso inay faahfaahin naga siiso waxa ku kalifay dalkeeda hooyo inay ka soo cararto. Hey Khadiija. dalkayga hooyo waxay ugu kalifay Soomaaliya soo wada carartaa ka soo carartay. oo maxaa dhibaato oo qaas oo adiga la soo carartay? waxaan la soo cararay aniga waxaan ahay dadka la yaso oo maxaan ku raraa sida xun loola dhaqmo. qaab ceenka ayaa lagu yasaa qaabkeena lagula dhaqmay adiga? aniga waxaa la ila dhaqmo waa la yasay waxaa la yidhi murgaan baa baxay waa la yasay dalkaygina waa ka soo cararay sidaa daraaddeed maadaama saa la yiri dalkayga waa isla soo cararay. Soomaalida inta badan hadda waxaa la ogyahay is-yasitaan iyo arrimahaasi inaysan iyadu aysan ku mashquulsaneen arrimo siyaasadeed iyo waxyaabo kale inay ku mashquulsan yihiin. ma siyaasadda ayaad doonaysay inaad ka qayb gashid oo xubin aad ka noqotid? qaab ceenka ayaa lagu yasay? maya siyaasad ma doonan inaan ka qayb galo. meel yaroo biibitaa baan haystay meeshii baa laygu dilay oo laygu qashqashaaday oo la yidhi mudgaan baa tahay kan baa tahay war mudgaan maahay Soomaalidan ka mid ahay markaa ragina waa layga dilay. oo marka qaabkaasi ma usoo carartay? qaabka daraadiisa usoo carartay. adigii keliga ayaa socdo oo sida hadda noo muuqdo aaway caruurtaadii iyo dadkii kale aad wada oo qaraabada ahaayeen? dadkii kale aan qaraabada ahayn iyo carruurtayda waa ka soo cararay. adig keliga ayaa soo cararay? Italiya intaadan imaan kahor waxaa ognahay saxarihii iyo baddii inaad soo martay. maxaa kugu yaabka badnaa oo dhibaato aad kula soo kulantay labadaasi meelood, saxaraha iyo badda? saxaraha iyo badda dhibaato waa kula soo kulmay. maxaa dhacay? baabuur cariiriyaan saarnayn oo rafaad ah oo haddaad doonti ka dhacay sida haraad iyo dhibaato iyo silad iyo bacaadku duugay iyo waxaasaan soo maray. oo saxara ah? oo saxaraha. baabuurkii misaa qof ayaa ku saarnaadeen? baabuurka 43 qof. noocuu ahaa? cabdibilo. cabdibilo ma 43 qof kusoo raacdeen? ma dumar oo keliya ama dumar iyo rag? rag iyo dumar isku jir. meeqa lacagaa kusoo dhiibtay cabdibilahaas? inteena kasoo raacday ilaa intuu ku keenay? suudaan baan kasoo raacay. ilaa intuu ku keenay? ilaa wuxuu keenay Liibiya. meeqa bixisay lacagta marka? $450. saxaraha bartimihiisa waxaa la sheegaa in ay jiraan burcad oo daafuuriin ah inta badan hablaha dhibaato u geysto, dadka tahriibayana maaragtay jirdil iyo maaragtay boob iyo waxyaabo kale ay u geystaan. ciidamadaasi mala soo kulanteen jabhadda? lama ana kulmin mana arag. waa gartay. Liibi markaa imaatay qaab ceenka ayaa ugu soo baxday, sideena kusoo gashay Italiya? Liibiya markaan imaaday waa ka soo baxay lacag aan shaqaystay baan kusoo raacay dooni. Liibi meeqa bilood aad joogtay? 6 bilood. 6 bilood waa shaqaynaysay soo maa? maxaa qabanaysay? hawl baan qabanaya, guri baan nagaafinay. yaa u shaqaynaysay? Liibiyaan baan u shaqaynay. luuqadda ma taqaanaa? luuqad ma aqaanay, qajajac baan ku shaqaysanay. marka doontii iyo baddii ga waran bal? doontii iyo baddii habeen iyo maalin baan kusoo jirnay oo baddii baan ugu kacday oo Talyaani baan la hadalnay. Talyaani baan noo soo gurmado naga soo kaxay. Talyaaniga qaab ceenka ayaad oo kula xiriirteen? yaa idin siiyey isgaarsiinta ama taleefanadooda? taleefanadooda waanu haysanay oo mutuleelaan wadanay. marka waa idin soo gurmadeen soo maaha? wax ma bad idinkaga dhintay? waxba noogama dhiman. Italiya idinkoo nabad qaba ayaad soo gasheen? okay, documentiga Italiya ma qaatay adigu hadda? ma qaadan. haye interviewga ma martay? interviewga waa maray. haye Soomaalida inta badan waxaa la ogyahay Italiya marka ay sharciga ay ka qaataan inay kasii cararaan oo meelo kale iska dhiibaan. adigu maxaa ku qorshaysan hadda? anigu inaan ka cararaa ii qorshaysan. xaggee u socotaa? xaggee u cararay? waxaan u cararayaa meesha loo wada socdo oo ummaddu ku yaacaysa. waa xaggee meeshaasi? waa Yurub weeye. shishe oo maaragtay Norway iyo meelaha iyo Ingiriiska iska aadaya. Italiya soo Orobo ma ka mid ah miya? Orobo way ka mid tahay laakiinse waa meel oo maaragtay gaaja oo maaragtay shaqo iyo waxba lahayn. shaqo nooca ayaa taqaanaa? maxaa waay professionkaada? maxaad doonaysaa inaad ku shaqaysid? waxaan ku shaqaysanayaa xoogayga inaan maalo. marka xooggaa ma maali kartin yaa Italiya markay joogtid? xoogayga waa maali karaa laakiin Italiya si shaqo looga helaa iska
meelaha kale yaa shaqada ku siinaya ma wadooyinka yaa shaqa laga helaa waa la iska helaa haddaan sharci helo waa iska helay waa isdhiibaya sharci waaba haysataay maxaa mid kale waa raadinaysa sharci waa haystaa mid kale raadinaya oo macnaha kan kursi sharaf marka waxaad doonaysa inaad sii socotid aawi hablihii kale soomaalida ay xarada iskula jirteen waxaa hore inaa u sheegtay hablo badan oo soomaaliya in xarada iskula xareysneedeen xaggee aadeen xaggee qabteen dukumentigu ma qaateen dukumentigii way qaateen way kala yaaceen xaggee u kala yaaceen xaggee aadeen halkaas meelahaas bay u kala yaaceen yurub bay iska aadeen meelahaasay galeen adigoo maaragtay xilligaani oo da-a maxaa kusoo kaxeeyey oo maaragtay dhibaatadan iyo shaqadan iyo miyaan wanaagsanayn in dalkaadi hooyo a iska joogto meesha aad iskaga shaqaysatay dalkayga hooyo waa laygu yasay soo kumali hadda marka ma waxaad doonaysaa meeshan maxaad ka doonaysaa marka waxaan doonayaa inaan ka shaqaysto ka faa'iidaysto waa gartay waa xaggee geynaysaa faa'iida haddii oo dalkaagii aad sheegtay in lagugu yasay ciyaalkaygii baan u dirsanaya ciyaalkaaga u dirsanay waa gartay odaygaadi ma soomaaliyu jiraa waa isla xiriirtaa hadda soo maha waa isla xiriirta waa gartay dad badan oo soomaaliyeed ayaa hadda waxay qorsheynayaan inay soo tahriibaan oo badda ay soo galaan iyo saxrin ay soo maraan dadkaasi maxaad kula talin lahayd maxaad u sheegi lahayd waxaan dhihi lahaa isku imaanin maxaa dhacay dhibaatadan kala kulmay baa dhegteeda ka qaylinaysa dhibaatada maxaa ugu weyn oo hadda dhegaystayaashaasi aad u sheegaysaa oo inaysan iyagoo sin soo bixin ilaa iyo markaan yimid meeshii la oran jiray Ethiopia waan kasoo lugeeyay 15 beri baan soo lugeynay 15 habeen 15 maalmood baan soo lugeynay masas iyo bahalo iyo biyo iyo silic iyo cadcadaan baan ku soconay ma garatay libaax baan la daba